بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام waxaa aan la joogaa Sheekh Cabdallah Sheekh Xambali. waxaan sheekha weydiin lahaa insha Allah taala Sheekh Xambali bisha hadda Shacbaan oo laba ah iyo Ramadaan oo iyaduna ku sii xigta oo bisha Shacbaan ay u tahay diyaar garowgeeda ay ka qayb ka tahay maxaa qofka muslimka ah looga baahan yahay. بسم الله الرحمن الرحيم. بشهر شعبان waxay ka mid tahay bilaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala 12 ah. fadli fara badanna way leedahay. Caaisha radiyallahu anha waxay leedahay ma aanan arag nabigu sallallahu alayhi wa sallam bil uu ka soom badan yahay bisha Ramadaan. xadiidkii Usaama ibn Zaydna nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri nabi Allah bishan Shacbaan inta aad soonto bil aad soonto ma aanan arag maxaa ugu wacan. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam dalika shahrun yaghfulu an-naasu anhu. waa bil dadku inta badan ay moog yihiin bayna rajab wa ramadaan. rajab oo bil cibaada ah oo ashhur xuramkii ka mid ah iyo ramadaan oo meesha hadda loo sii gogol xaaranaya ayay u dhaxaysaa. marka dadka inta badan way moog yihiin, sidaasuu nabigu soonka u badan jiray. wuxuu kaloo nabigu sallallahu alayhi wa sallam yiri waa bil acmaasha la kor yeelo, waxaanan jeclahay an yurfaca camali wa ana saa'im. بارك الله فيك وجزاك الله خير. maxaa kale ka mid ah sheekhi waxyaalaha uu qofku qaban karo maaragtay waxa weeye cibaadaadkiisa iyo iimaaneedkiisa kor u qaadi kara bisha Shacbaan looga baahan yahay. qofkii raacraaca ama u fiirsada dadkii saalixiinta ah ee wanaagsanaa hadalladoodii runtii bisha Shacbaan waxaa la yiraahdaa waa shahrul quraa, waa bishii quraanka. xagga quraanka loo cararayay waa bishii diyaar garowga, waa meydaankii iyo fagaarihii qofka ugu sii diyaar garoobayay bisha Ramadaan. rajab waxaa la yiraahdaa waa bishii abuurista, Shacbaanna waa bishii waraabinta, Ramadaanna waa bishii zarciga iyo dalaga iyo daaqa la goosanayay ee mirihii intaasoo dhan la goosanayay weeye. marka u fiirso qofka marka uu rabo inuu imtixaan galo, marka uu rabo in uu wax sameeyo, wuxuu sii sameeyaa training buu sii sameeyaa, diyaar garowyuu sii sameeyaa. marka bisha Shacbaan soonkii baad kusii tababaranaysaa. soonka badan saasaa looga hadlaya. quraan akhriskii, salaatuleylkii inaad sii dhadhamiso, ducadii, sadaqada inaad sii bixiso. dadkii wanaagsanaa waxay leeyihiin zakada xitaa zakaatulmaalka xilligaasaanu bixin jirnay si hadhow dadka saa'imiinta ay ugu afuraan xoolihii la bixiyey. marka waa bil ilaahay xaalkeeda uu garanaya. allahna waafajiyo, Ramadaan allahna gaarsiiyo. amiin ya rabbal aalamiin. sheekhna su'aasha ugu dambeysay waxay tahay dad baa jira dadka qalbiga wax ugu haya oo isu cadhaysan oo aan isla hadlin oo iscolaadiya oo isxasadiya. dadka noocaas oo kale bilahan iminka bishan Shacbaan maxaa looga baahan yahay in ay sameeyaan. jazaaka allahu khayr. waa su'aal aad u qiimo badan runtii. xadiid waxaa jira darajadiisu ay xasan tahay, nabiga sallallahu alayhi wa sallamna ka asaxay sida uu sheegay Sheekh Albani alayhi rahmatullahi. waxaa xadiidkaasi wuxuu leeyahay habeen baa ku jira bisha Shacbaan, waa habeenka bartanka 15 bisha Shacbaan ama habeenka bartanka ah nisfu layla. habeenkaasi ilaahay makhluuqaadkiisa ayuu taalacdaa oo uu eegaa dambigooda oo dhanna inta muslimiinta ay ahlu tawxiidka uu ka dhaafaa ilaa qofka mushriga ah iyo qofka shaaxinka ah. mushriga waa la gartay oo waa ilaahigii abuuray buu badiiday oo kaasi in loo dambi dhaafo xitaa maba astaahilo. in allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duuna dalika liman yashaa. laakiin qofka kalen isna aan loo dambi dhaafaynin waa midka dadka qalbiga wax ugu haya. waa labada qof ee isu cadhaysan, waa labada qof ee yani isu dhabar jeedisay weeye. marka kaasna waxaa weeye waa loo baaqayaa. haddaad rabto ilaahay inuu acmaashaada aqbalo, soonkaada aqbalo, zakadaada aqbalo, qiraa'adaada aqbalo, sadaqadaada aqbalo, ducadaada aqbalo, ilaahay subxaanahu wa tacaala takbiirta iyo wax walba uu kaa aqbalo, waa in aad dadka muslimiinta qalbiga aad wax ugu qabanin weeye. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu laabteenna qilliga iyo xasadka iyo xiqdiga dadka muslimiinta ah uu ka saaro kana nadiifiyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala nagu irsaaqo jacaylka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo inta mu'miniinta ahba. amiin ya rabbal aalamiin. jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiik. sheekhna ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro. walaalaha ina daawanayana waxaan kula talinaynaa in talooyinka wanaagsan sheekhu ina siiyo insha Allah taala inaan ku dhaqanno oo qaadano. jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wa calaykum assalaam.